maalin iyo habeen kaliya ayay wax waliba isku bedeleen markay qabsatay Taliban caasimadda Afghanistan ee Kabul. waxa la arkayay iyadoo ay dadku isku ciriirinayaan airport-yada oo ay diyaaradaha qabsanayaan deegaga si ay iskaga baxaan dalka. bal haddaba ayna dib ugu noqonna waqtiga ururkan Taliban waxa markii ugu horeysay ee uu soo muuqdo ay ahayd markii ay dagaalada sokeeye ay ka socdeen Afghanistan laguna qasbay ciidamadii midowga Suufiyeed inay shandadahooda ka xidhxidhaan oo ay iskaga baxaan gabi ahaanba dalka sanadii 1998. wuxuuna ururkaasi noqday markii ugu horeysay mid soo afjara musuqmaasuqii iyo isqabsigii ka dhexeeyay kooxihii xukunka dalkaas u kala roorayay. waxaanay sidoo kale ku dhawaaqeen in shariicada islaamka lagu maamuli doono dalkaas Afghanistan oo ay haweenku xidhanayaan xijaab. sidoo kale waxay ka mamnuuceen in la daawado TV-yada, dhigaysiga heesaha iyo daawashada shaneemooyinkaba. laakiin waxay wax waliba dhanka kale isku rogeen markii uu Maraykanku ka dalbaday inay Taliban gacanta u soo geliyaan Osama bin Laden iyagoo ku eedeynaya inuu yahay maskaxdii ka dambeysay duqeyntii diyaaradaha lagu duqeeyay daarihii Maraykanka. ururka Taliban way diideen arrinka. Maraykankuna wuxuu weerar ku soo qaaday Afghanistan. Taliban waxa uu ka eriyay caasimadda dalka iyo waliba magaalooyin kale oo badan. wuxuuna ku sigtay inuu dabar jaro gabi ahaanba ururkan. laakiin dib ayay u xuub dhacsadeen oo waxay dib iskugu soo bahaysteen xuduudda ay Pakistan la leedahay Afghanistan. waxaana halkaa iskaga hor yimi kooxaha Afghanistan iyo ciidamada Maraykanka ilaa ay Taliban ay ku qasabtay in uu Maraykanku shandadihiisa ka gurto Afghanistan. sidoo kale waxa la arkayay ciidamadii uu Maraykanku dhisay ee uu dhaqaalaha iyo hubka casriga siiyay oo ka yaacay magaalooyinkii ay soo galeen kooxaha Taliban. taas oo ku noqotay su'aal ay dawladaha Maraykanku u ka caawiyo dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha ciidanka lagu bixiyo ay isweydiiyaan su'aal u dhigan sida tan: hadduu Maraykanku iskaga baxo dalkiina awood ma u leedihiin inaydun iska difaacdaan kooxaha idinka soo horjeeda?